muqdisho waxaa soo gaaray markab ay leedahay shirkadda Djibouti lagu magacaabo African Sun. wuxuu markabkan ka yimid wadanka Turkiga isagoona si toos ah u soo maray magaalooyinka Soomaalida sida Djibouti, Berbera, Boosaaso, Kismaayo, wuxuuna soo gaaray ugu dambeyn dekedda weyn ee Muqdisho. markabkan ayaa wuxuu sidaa shixnad ka badan shixnad gaaraysa ilaa 150,000 oo bilyan oo ah nooca raashinka kala duwanba, waxaana u badan baasta iyo bariis. tan waxay fududeynaysaa ganacsiga u dhaxeeya Soomaalida iyo Turkiga. Soomaaliya iyo Turkiga bariga ugu dambeeyay waxay ahaan laba wadan oo si aad ah isugu soo dhawaahayeen, waxaana hadda la hormariyay dhinaca badeecada. markabkan halkii mar xilligii shixnadu ay Muqdisho, Djibouti iyo meelaha kale ku tagi jireen ilaa isbuuc, hadda isbuuc laba jeer ayuu keenaa badeecada. waxayna sidaas Soomaaliya ku dareemi doontaa in raashinku iska noqdo raqiis maadaama gaadiid si fudud wax kala gooshi kala la helay. wasiirada dekedda ayaana si wanaagsan uga mahadcelisay. dekedda Muqdisho waxaa gacanta ku haya Turkiga, waxayna sheegeen in arrintan ay si ballaaran doonto. saxaabta ay ku xiran beedkan gudniga shar dhaha leeg saar fulunda fadlan boqortooyinka gudniga si ay si wax badan halkaas soo gelino.